halkan oo ah garoonka basketka ee degmada Balcad waxaa maanta oo Jimco ah taariikhdan ay ku aastaysan tahay 4 bisha 8aad 2023 si toos ah uga dhacay dhagax dhig kaas oo ujeedkiisu uu yahay in dib loo dayactiro basketka kan ee degmada Balcad waxaa ka soo qayb galay dhagax dhigaas mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha Olombikada gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta degmada Balcad dhagax dhiga kadib waxaa goobta ka hadlay gudoomiyaha Olombikada ee degmada Balcad Yaasiin Baanow. Alxamdulillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah. Awalan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ba'da salaam awalan Allah subhanahu wa ta'ala ya mahad iska leh maanta nagu kulmiyay garoonka basketka degmada Balcad walow maanta garoonkan ayaantan uu burbursanaa maanta waxaan nasiib u yeelanay ama oo soo kacay rabana inuu wax u qabto meesha uu ka soo jeedo walaalkay Yaasiin Maaxi oo qurbi joog ah rabana meesha uu ka soo jeeday inuu wax u qabto sida dhalinyarada oo kale inta badan rabana hadda uu taaganahay garoonka basketka ee degmada Balcad oo ka bilaabo hooshiisa oo rabo waxa kale oo la joogo shirkadda Horyaal Mr Dini oo ka socdo waxaana la jiro agaasimihii Xasan aniga waa macallin Yaasiin Baanow walaalkay waa kana Yaasiin Maaxi waxaana la jiro gudoomiye ku xigeenka siyaasadda Ismaaciil Bare waxa kale oo goobjoog ah gudoomiyaha isboortiga ee degmada Balcad Aweys Ali Daahir waxa kale oo dhinacyaha ka xiga qolada Olombikada degmada Balcad maanta wuxuu Allah subhanahu wa ta'ala nagu galaday walaalkeen iyo horyaalkii shirkadda Horyaal iyo agaasimaheedu isdaba socda maanta inay Balcad ay ka dhagax dhigeen interlock wax la yiraahdo ay dhigayaan garoonka basketka degmada Balcad aad ayaan yaani ugu baahneen oo Balcad waxay ka dhineed basketka maadaama ognahay fuudka xoogaa in wali tartamo ay noo socdeen laakiin basket wax la yiraahdo ma jirin walaalkeen qurbaha ka yimid wuxuu arkay baahida degmadiisa loo qabo basketka sida daraadeed go'aan uu qaatay waa ilaahay khayr ha siiyo shirkadda Horyaal ilaahay khayr ha siiyo ayagana waa ugu mahad celinaynaa agaasime Xasan iyo waa ugu mahad celinaynaa guddiga degmada Balcad ama oo gudoomiyaha Hormuud uu yahay Qaasim Ali Furdug oo hadda wakiil uu ka yahay gudoomiye ku xigeenkiisa ayagana waa ugu mahad celinaynaa dhalinyarada Balcad waxaan leenahay hadda ka bacdi waxaan heli doonaa oo noo soo kacay walaalaheen qurbaha jiray yimid arkayna in Balcad maanta ay u baahan tahay garoon basket in loo sameeyo iyo waxyaabaha la halmaala laakiin tan waa bilow aad u fiican waan u baahneen waan sugeyn mahad haydin ka gaartaa leenahay ilaahay ajri xasanaad ha idinka siiyo wasalaam waxaa sidoo kale ujeedka mashruuca ka hadlay Yaasiin Maaxi Maxamuud oo ahaa samafalaha mashruuca kan ugu deeqay degmada tan Balcad. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Bahada saxaafadda Horyaal interlock Dini iyo walaalkay agaasime Xasan walaalkay Yaasiin Baanow guddiga Olombikada ee degmada Balcad sidoo kale gudoomiye ku xigeenka arrimaha siyaasadda walaalkay Ismaaciil sidoo kale Aweys oo asigana ah gudoomiyaha isboortiga ee degmada Balcad sidoo kale waxaa garab taagan runtii oo ayagana ugu mahad celinaya guddiga Olombikada mahad ha idin gaarto maalin dhaweeyta aniga hore u soo booqday degmada Balcad dhowr maalmoodna waa ku soo noqnoqday insha Allah ta'ala waan ku soo noqon doonaa walaalkay Aweys aan is aragnay gudoomiyaha isboortiga ee degmada Balcad asiga ayaa igu dhiirigeliyay markaan arkay burburka ka muuqdo garoonkii basketka aniga sideeda kale Yaasiin Maaxi macallin ahaan waxaan ka soo jeedaa bah sporti waliba kubadda kolayga ayaan ciyaari jiray barsimaadkii waqtigii quruxda badneed oo wadankan aad u qurux badnaa u dhisnaa taas ayaa igu dhiirigelisay inaan ma aragtay garoonka aan arkay asigoo burbursan saas aawadeed waxaan ballan qaaday walaalkay Aweysna u ballan qaaday gudoomiyaha isboortiga iyo dadweynaha Balcad iyo dhalinyarada Balcad iyo dadka jecel isboortiga qaasatan kubadda kolayga
waxaan u ballan qaadaynaa ilaahay idinkiisa insha allahu tacaala waqti dhow inay meeshaan ku ciyaari doonto inay meeshaan meel camiran ay noqon doonto meeshaan inaan insha allahu tacaala nooleyn doono ilaahay subxaana wa tacaala waxa nooleeyo aniga waxaan ballan qaaday qarashkii iyo barnaamijkii inaan bixiyo sidoo kalena maaragtay horyaal interlog ayaga naftirkooda aysan ku filnayn ku ekaynin kaliya interlog inay dhulkii iyo waxa ay dhigtee garoonkii oo basketka hadda aan horteena aad ugu jeediin ayay ayagana ballan qaadeen inay maaragtay fuliyaan taasaanan maaragtay ku dhiiraday ayaga maadaama kalsooni fiican oo qurux badan aan ku leeyahay aqoon fiicanna aan u leeyahay gobolka banaadirna ee waxyaalo badan ay ka soo qabteen insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa insha allah dad si qurux badan inay barnaamijkan ilaahay idinkiisa ay u fuliyaan waxaan rajaynaynaa marka kale oo ugu dambeysana aan u imaan doono xarig jarkeeda oo aan aaminsanahay guddoomiyahayga walaalkay Ismaaciil iyo bahdan inay la soo buuxin doono oo markii xarig jarkana ay noqon doonto lala xarig jar doono haddii ilaahay yiraahdo garoonka kubadda cagta oo ayada naftirkeeda dhismaheedii iyo howlaheedii la dhameystiray marka waxaan rabnaa inaan insha Allah ka daba gaarsiino intii ay furitaankaas aysan dhicin inay isla waqti ay iskugu wada dhacdo insha Allah gudoomiye aadan kaaga mahad celinaya la joogaaga iyo la jirkaaga aan noogu timaaday aad maaragtay sida quruxda badan aad noogu soo dhaweyseen degmada Balcad waa idinkaga mahad celinaynaa waana ku mahadsantihiin waqti dhowna idin soo wacno idin dhahnay waqtigan aan soo soconaa mahadi ha idin gaarto insha Allah tacaala gacmo wada jiray wax ku gooyaan inaan wada shaqeyno bulshadii inay idinla shaqeyso dhalinyaradii inay idinla shaqeyso dhalinyaradii laga faa'iideysto ilaa hadda waxaa la yiri wadanka dhan Soomaaliya 70% boqolkiiba 70 iyo 5 waxaa la yiri dhalinyaro waaye marka dhalinyarada inay ka faa'iideystaan raba hadalkayga anigoon ku dheeraanaynin waa mahadsantihiin reer Balcad oo gudoomiye ku-xigeenka uu hogaaminayo iyo gudoomiyaha isboortiga aad idinkaga mahad celinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaa sidoo kale goobta ka hadlay agaasimaha guud ee shirkadda horyaal interlog salaatu wasalaamu calaa ashrafil mursaliin maanta waxaan joognaa degmada Balcad oo ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle waxaan u joognaa dhagax dhigga iyo dhismaha garoonka basketballka ee degmada Balcad waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha sportiska saaxiibkay Aweys sidoo kale waxaan u mahad celinayaa Yaasiin Bonow oo ah madaxa Olimbikada degmada gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha siyaasadda saaxiibkay Ismaaciil samafalaha weyn ee siyaasiga ah ninka la yiraahdo Yaasiin Maaxi oo runtii qurbaha uga yimid inuu degmadiisii ka soo jeeday oo maanta maaragtay dhaqaalaha ku bixi lahaa garoonkaas basketballka uu kafaalo qaaday annagana horyaal ahaan uu noo ogolaaday nasiib u yeelanay inaan noqono shirkaddii dhisi lahayd taabageli lahayd garoonkaas runtii degmada Balcad waxay caan ku tahay sportiska aad caan ugu tahay waagii barisamaadkiina waxa waaye dad badan ka soo baxay oo sportiska magac weyn ku leh farxad ay noo tahay in haddana dib loo bilaabo wixii caan ku ahayd degmada Balcad oo markii hore la dhihi jiray Taytayley runtii Aweys iyo ninka la yiraahdo Ismaaciil waxaan leenahay guuleysta sidoo kale maamulka degmada gudoomiyaha guud iyo gudoomiye ku-xigeenada gudoomiye waaxeedyada runtii waxa ugu muhiimsan waxay tahay in bulshada waxa ay jeceshahay loo sameeyo sportskana wuxuu ka mid yahay waxyaabaha udub dhaxaad ku ah bulshada annagana insha Allah horyaal ahaan wixii suurtagal ah oo maaragtay sidii lagu soo dhaweeyay hadda ayaan mar walba uga warqabi doonaa degmada waana ku soo laaban doonaa mashruucan ilaahay anagu waa noo fududeeyo waxaan leeyahay meeshaas dadaalkiina ka sii wada waxaan soo booqanay sidoo kale garoonkii ciyaaraha oo kubadda cagta oo runtii asna aad u diyaarsan oo asna mar xarig jarka waxaan rajaynaynaa marka inaan soo xilli munaasaba oo maaragtay madaxweynaha goboleedka Hirshabeelle mudane Cali Guudlaawe xarig jaro sidoo kale waxaan assessment ku sameyn doonaa oo aan soo mari doonaa ganacsiga degmada
iyo wadooyinka wixii suurtagal ah oo aan isleenahay waxay u baahan yihiin interlock inaan maaragtay insha Allah ku dhiirigelino bulshada waxaan leenahay guuleysta. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaa sidoo kale si kooban uga hadlay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda Ismaaciil Bare. alxamdulillaah maanta waa maalin aad qaali noogu ah muhiimna noogu ah haddaan nahay maamulka degmada Balcad iyo bulshadoodaba waxaan u taagannahay dhagaxdhigii interlock basketka degmada Balcad waxaa inoo suurto geliyey arrinkan walaalkeen Yaasiin Maaxi Maxamuud samafale degmada ka soo jeedo jecelna samaha iyo horumarka bulshada dhalinyarada qadaraaskan wuxuu siiyey shirkadda Horyaal Interlock agaasimaheeda noola jooga agaasime Xasan waxaan leenahay samafale Yaasiin Maaxi Maxamuud walaalkay aad u mahadsan tahay maada ka gaarto degmadu waa degmadaadii aad baan ugu baahnayn degmadu ugu baahnayd in loo dhagax dhigo basketka uu ka dhinay degmadu isbartiibadu way diyaarsan tahay kubadda cagta basketkuna uu ka dhinay ma sha Allah aan ku leenahay aad baa u mahadsan tahay maada ka gaarto waxaan leenahay bulshada kale oo ka soo jeedo degmada Balcad waxaan leenahay role model ha idin noqdo Yaasiin inaad ku dayatiin aad muhiim u tahay aad baan u jecelnahay inaad idinkana dhinac istaagtiin samafale Yaasiin si degmada ay horumarkeeda u ballaarto degmadu waa degmadiina waxaan leenahay Yaasiin mahad ka gaarto aad aan kaaga mahad celinaynaa haddaan nahay maamulka degmada Balcad iyo shacabkooda ilaahay ajr xasanaad ha ka siiyo Interlock shirkadda Horyaal Interlock qadaraaska uu siiyo qaadatay inay waxaan leenahay qadaraas kaliya ku ekaanne idinkana wax ku dara degmadu waa degmadiina si idinkana ay u noqoto taariikh iyo horumar halkaani waxaa ka shaqeeyay oo qadaraaskana fuliyay tayada leh oo intaas sano lagu la taabanin kadib Horyaal Interlock la yiraahdo marka waxaan leeyahay soo dhawaada degmada degmadiina aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. halkan aad u jeedaan waa garoonka basketka oo runtii dhagax dhig maanta uu ka dhacay lana doonayo in goor dhow oo dhismuhu si toos ah halkan uga bilowdo sida ay rajadu tahay waxaan rajaynaynaa in garoonka weyn iyo sidoo kale basketka hal jeer xiriga loo jaro. Jilaani Cali Mucuu Kamaara, Raja Sports Balcad.